بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن داود ميل والبوء جوتيد كسو دو ورarkii ugu dambeeyay geyiga Soomaaliya macluumaadka degdeg ah oo ku soo gudbin doona waxa qayb ka noqon doona tirada ciidankii ugu badnaa oo ka tirsan beesha Ciise oo dhowrkii saac la soo dhaafay soo galay gobolka Awdal iyagoo ka soo talaabay dawlad deegaanka Soomaalida waxay qabsadeen deegaano beera ah oo ku yaala xuduuda Lughaye ilaa iyo magaalada Saylac waan ku soo gudbin doona xiisada culaadeed oo halkaasi laga soo warinayo iyo talaabooyin dheeraad ah oo ay qaaday beesha Ciise sidoo kale qodobada kale aan kula wadaagi doono waxa qayb ka noqon doona suldaankii guud ee beelaha Samaroon Suldaan Cabdirashiid Doodi oo goordhow ka cararay magaalada Boorama isagoo aaday dhinacaasi magaalada Hargeysa haddaba Ciise waxay qabsan doonaan magaalada Boorama faahfaahin ayaan kaaga hayaa qodobada kale ee xasaasi aan kula wadaagi doono waxa qayb ka noqon doona ciidanka koonfur galbeed oo banaanka magaalada ku celinaya maleeshiyaadkii buurha kaba laga soo abaabulay dagaal laga cabsi qaba inuu halkaasi ka dhaco iyo dawladda Soomaaliya oo diyaarada u adeegsanaysa duulaan ay ku qaada magaalada Baydhabo qodobadaas iyo macluumaadadii kale aan ugu soo kordhaa ayaan saaxiibayaalidiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haddii taa markii kugu horeysay ku soo biri channelkan waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaadana qaybta commentigeena ugu reeb aan ku bilaabo daawadayaal qodobkeena ugu horeeyay kadib dagaal qaraar oo ka dhacay gobolka Awdal aaga magaalada Lowya Cadde iyo magaalada Saylac xaaladdu wali waa ay kacsan tahay beesha Ciise ayaa boqolaal ciidamaha waxay soo galiyeen gobolka Awdal ciidankaas oo ka soo talaabay dawlad deegaanka Soomaalida ku dhawaad laba guuto oo ah 200 oo asgari oo ku hubeysan qoryaha shanshuutarka iyo qoriga AK47 ah ee lagu farsameeyo Itoobiya iyo Djibouti ay ciidanka beesha Ciise ku hubeysan yihiin sida uu qorshuhu yahay ciidankan waxay toos u qabsan doonaan magaalada Boorama hadaan la helin xal degdeg ah oo lagu soo afjarayo xiisad halkaasi ka aloosan sida uu sheegay wargeys ka soo baxa gudaha Itoobiyana ugaas Mustafa ayaa toddobaadyo ka hor waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya kahor inta uusan dagaal ku dhicin waxaana kulankaasi la aaminsan yahay in diiradda lagu saaray in beesha Ciise ay qabsato magaalada Boorama kadibna gorgortan lala galo madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ila wareedidu waxay tilmaamayaan dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay tuulada Xuseen Jiddi tuulada Cabdiqaadir tuulada Durdur tuulada Hemaal tuulada dixda Sheekh Awaare ilaa eeriyada Lughaye in ay ku gacan sareeyeen ciidanka beesha Ciise oo deegaano fara badan laga qabsaday beesha taagta daran ee Samaroon kuwaas oo la sheegay in meedad fara badan ay ka carareen dhaawacana ay dabiibi waayeen waa markii labaad oo beesha Samaroon ay la kulmayso jab culus oo uga imaanaya beesha Facaweyn ee Ciise taasi oo ku tusinaysa in dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Awdal gaar ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada Boorame ay gacantu ahayd dhinaca beesha Ciisaha Samaroonku diyaar uma aysan ahayn dagaal waqti dheer oo ay la galaan beesha Ciise sida ay dad badan aaminsan yihiin xiisaduhuna wali waa laga soo warinayaa deegaanadii lagu dagaalamay meedad tira badan ayaa la soo warinayaa in lagu arkay deegaano hoos yimaada magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal halka dad tirahaan 5 nin gaaraya goordhow lagu aasay banaanka magaalada Boorama sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka sirdoonka Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay sida muuqata hadda xaaladdu waa ay degan tahay laakiin dhinacyadu waxay wadaan hub urursi xoogan tusaale ahaan beesha Ciise ku dhawaad 200 oo asgari ayay soo gelisay magaalada Boorama iyo deegaanada hoos yimaada iyadoo horay magaaladaasi iyo deegaanada hoos yimaada ay u joogeen ciidamo fara badan oo la sheegay inay yihiin beesha Ciise sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka halka laga helayo xogaha helaya waxay tilmaamayaan in 48 saac la soo dhaafay ay jiraan aragti la xiriirta in laga cabsi qaba inay dagaalo baaxad weyn ay ka dhacaan gobolka Awdal iyadoo oo wararka la helayana ay tilmaamayaan in marba markaa ka dambaysa la arkayo wax u eg colaad oo ka jirta gobolka Awdal iyadoo oo meedadka iyo dhaawacu wali ay daasan yihiin deegaanada lagu dagaalamay oo xataa bahal qaar ay cuneen sida ay dad badan halkaasi ka warinayaan wararka la helaya sidoo kale waxay tilmaamayaan in ciidanka maamulka Soomaaliland ay dagaalka ku bixeen si ay xaaladda u joojiyaan laakiin wararka la helaya waxay tilmaamayaan in dagaal xoogan oo halkaasi ka socdo isla markaana lagu guul daraystay sidii dagaalka loo joojin lahaa beelaha Ciisana dhowr jeer waxay ku anducoodeen inaysan aqbali doonin oo aysan yeeli doonin dagaalna ay la gali doonaan
cid walba oo lagu tuumo in ay sheeganayso dhulka iyagu ay degaan. waxay ku soo kordhaa wadayaal qodobkaas wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tabin doonaaye markana war kale oo degdega. dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka koonfur galbeed iyo sidoo kale maleeshiyaadkii ka soo duulay dhinaca magaalada Buurhakaba ayaa hadda waxa uu ka socdaa jihooyin kala duwan oo ku yaala magaalada Baydhabo oo fadhi ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed. ciidanka dawladda koonfur galbeed ayaa iska caabinaya weerarkan oo u eg mid ay soo qaadeen maleeshiyaadka isku urursanaya Buurhakaba. xabaduna waxay ka socotaa banaanka magaalada Baydhabo. ciidanka koonfur galbeed waa loo gali la'yahay waana la soo jiiri la'yahay. asgar walba tababar walba ha qaataan maleeshiyaadka lagu ururinayo Buurhakaba way ku guul dareysteen inay Baydhabo xataa ka agdhowaadaan. rasaasta iyo xabaduna waxay ka dhacaysaa jiha walba. qoryaha durundooriga u dhaca hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la soo warinayaa in dagaalkan hadda socda la isku adeegsanayo. ciidamada Itoobiya ayaa sidoo kale la soo warinayaa inay dagaalka qayb lixaad ku leeyihiin. muuqaalo goordhow soo gaaray ayaa waxay muujinayaan sida ciidanka koonfur galbeed ugu diyaar garoobeen. wali ciidanka koonfur galbeed way xaraga dagaalamayaan laakiin dagaalka toos haday u galaan dad badan waxay aaminsan yihiin in dagaalka uusan qaadan doonin hal maalin xataa ay iska dhaaf hal saace laguna kala bixi doono sababtoo ah ciidamo tiro yar oo deegaanka aan kala aqoon oo weerar soo qaaday iyo ciidan ku jiray dhufays dabcan isku mid noqon maayaan oo mar walba guushu waa ciidanka xaq u dirarka ah ee dawladda koonfur galbeed kuwaas oo jihooyin kala duwan raba in ay ka garaacaan maleeshiyaadka duulaanka soo qaadaya. rasaasta noocyadooda kala duwan iyo qoryaha durundooriga u dhaca ayaa si weyn looga dareemayaa Baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada. wareedii aan goordhow la hadalnayna waxay leeyihiin rasaasta hadda socota waa ay ka xoog badan tahay kuwii hore uga dhacay Daynuuna iyo deegaanada hoos yimaada. dabcan xogaha la helayo sidoo kale waxay tilmaamayaan haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto in ciidamada koonfur galbeed maxaabiis fara badan ay qaban doonaan isla markaana ay dili doonaan xubno fara badan oo kamida ciidanka xasan sheekh maxamuud oo ku daabulayo gudaha magaalada Baydhabo oo fadhi ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu daabulayo deegaanada Baydhabo hoos yimaada ayaa si xoogan waxay uga hortageen sidoo kale weerar kooxda shabaab ay soo qaadeen taasi oo dabcan ku tusinaysa in ciidamada laftirkooda la rabay in la daaliyo ka horba intaysan dagaal la gelin ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya. wuxuu ku soo korray qodobka daawadayaal oo ahaa mid degdega. wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tabin doonaa markana qodobadeena kale. waxaan eegayaa dhinacaas iyo isla gobolka Awdal baan dib ugu laabanayaa suldaanka guud ee beesha Samaroon Suldaan Cabdirashiid Doodi ayaa la soo warinayaa inuu goordhow iskaga cararay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. ilaa hadda lama oga halka uu jaan iyo cirib dhigay laakiin wararka la helaya waxay tilmaamayaan inuu afka saaray dhinacaas iyo magaalada la yiraahdo Baydhabo waa magaalada la yiraahdo dabcan Hargeysa oo caasimadda Soomaaliland ah. xogaha la helaya waxay tilmaamayaan in 48 saac ee la soo dhaafay Cabdirashiid Doodi iyo odayaasha kale ee la jooga ay qabeen walaac iyo walbahaar xoog leh oo ku saabsan in dagaalo foolka fool ah lagu wajaho ciidamada walow markii dambe la sheegay in ciidamadu waa beesha Samaroon ay hore u sii raaceen suldaanka guud ee beesha Samaroon. xaaladda magaalada Boorame aad bay u kacsan tahay. ciidanka beesha Ciise waxa laga cabsi qabaa in ay 4 jiha ka weeraraan magaalada la yiraahdo Boorama hadda qarka waxa u saaran tahay inay u gacan gasho nimankan la yiraahdo Ciisaha hadaan la helin xal degdeg sida ay dad badan aaminsan yihiin. waxaan la hadlay dhowr xubnood oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise saraakiishooda waxayna ii sheegeen in ay u badan tahay inay hadda xaaladdu faraha ka bixi doonto isla markaana jawigu noqon doono mid xaaladdu dabcan waxba aan laga qaban karin haddaan si degdeg ah xal looga gaarin arrinta hadda ka taagan gobolka. Samaroonka Ciise waa islaayaan haddana sida hadda wax u muuqato waxba kama soo kordhin dagaaladii ugu dambeeyay. xogaha la helayana waxay tilmaamayaan in 48 saac la soo dhaafay si weyn loo dareemay culeysyada ay beesha Ciise soo saartay beesha Samaroon taasi oo dabcan ku tusinaysa in dagaaladii ugu dambeeyay ee halkaas ka dhacay ay ahaayeen kuwa aad u sareeyay isla markaana xaaladda gaarsiiyay meel aan wax laga qaban karin. haddii dabcan xaaladdu sidan ku sii socoto dad badan waxay aaminsan yihiin
in sheekadu faraha ay ka bixi doonto isla markaana uu jawi geli doono meel aan waxba laga qaban karin. saaxiibayaal wararkeena intaas bay ku dhan yihiin. hadday tahay kolkii kugu horeysay ku soo biir Daraja Media waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacno. aragtidaadana qaybta commentiga ugu reeb. meel kastoo aad joogtaan saaxiibayaal sharaf iyo karaama ay soo dhawaada.